markay jabhadayso isku soo jabhadayso isku sii jabhadayso dhamaanteed jabhadayso dhinac baa la jabshaayay jabhadan kalamaan horta yaa la jirtaan kiina la jiraan la jirnaa kiinaga jiraan ka jirnaa kiina la jiraan la jirnaa kiinaga jiraan ka jirnaa aryaa kalamaan kulama jirto kaamana jirto warmayada kalamaan taasi waa kulmiye war kulmiye dhidig meel lagu kulmiye kuluma jiro kaamana jiro yaleere warniyo adiga ma dhalan taraama ku soo diray warmaya awr baa wada dhalaniyo ma jidha iyo waa jidha way isku qaban jidheen ay maad waxa soo xasuusatay markaad gashaantada heed gaalkacay ka baraburu jirtay lamadey isla qaadana qalbigora kama go waxaanigaaba ka qaban ku war labada madaxweynaha maanta maqaayada lagu caleema saaray miyaa heestaan loo qaaday warsaan looma qaadin Axmed Gudoobe shalay waxa loo qaaday gabayga yeerahaya guuxaan baxahaya iyo gurbaankan awgeed dishaanbow baa lagu guurinahaya war meeysiine maanta madaxweynayaashii Xidig iyo Cabdinaasir Saraar iyagoo ka jawaabaya caleema saarkii Axmed Gudoobe ee shalay maqaayad bay inta soo fadhiistaan isku caano shubeen eebaago dad war ismaha aray kuwana aanay ku qubaysahayaan kuwana yaabisaa dilaaheeday war labada madaxweyne caleema saarka iyaga isku darsaday kullayna qarashka caleema saarka inay isku darsadeen baan filayaa war ma ayuutay galeen waa yaabe lamadooda kee madaxweynaha koobaada war mid walba madaxweyne ku-xigeenkiisa wata war labada madaxweynenimo Xidig iyo Saraar raqiisiyay war maxaad kula yaabaysi hortooda Axmed Baaste raqiisiye madaxweynenimada warna miya umaylaaray uunkona alalaase uunkona ooye walaari hadii iyo madaxweynenimada raqiisku weeraan aana boorada igaaliyo aan ogaadahay war maxaad u qaadaysay heestii uu simeeyay waa ku unsalaha war waxaan unsanayaa maninba amsawanaag war ninkii aadan barra ducaale gudoomiyaha baarlamaanka ahaa ee nagu soo xadgudbay maamaayo xadgudub shala jeediyay war ma awal bay hal booliya nidig xalaal dhalaysay war anagu kamaana sugayna warka naga dhagayso war lankii irikii goori hoos ma kii jiida waleeri war ma isaaqow ina shala caleema saarkaad ka qayb gashaa fiicnaa aadan barra ducaale u jawaabtid wuxuu siyaasiyiinta Soomaaliya ugu maamaahay islaanaan uusan jirin haday unsato meelaysa ka guban jirin bay ka go'ataa marka waxaan leeyahay baran ninka weyn aan ugu soo xadgudbay maamaayo xumad uga daraadana war maahmaahar beelotaasin dhikan dokin haaya oo dhagansoy dad adanan dhalan hoobad shaagata dadka haaya ku dumaasay leeri horta shalay dadkii kismaayo isugu tagay anuu lama yaabin oo Soomaalidu inta iskhilaafto hadba meel waa u dilaami jirtay laakiin waxaan aad uga xumaaday ninkii daraad lahaa badda anaga Kenya haale xoog cas in loogu goglo kismaayo ka soo dago marka waxaan dhihi lahaa fidnada dhexdeena hadaan laga fayoobaanin falaaraha hadaan la iska dhigin faataxana raacin faranjaad sugaysaan bariba faax ka soo daga fakta hore caruurtu rabaa inuu fasaadsha dabadeedna faynuusahay daminayaan fiidka noo shidan shiikhii fac weyn bay si fudud faylaha u goyn fiilada dabkaaga indhaha fag wasoosin fidna nagu taagano fadhi nooma yaalle faataxada mara dad yahow faataxada mara war umaysiine xildhibaan mahasalaad wuxuu yiri aadan barra ducaale shalay markuu farmaajo taageerayo mucaaradka Nairobi u diiday ma Soomaali buu ahaa maantana markuu Kismaayo yimid oo ka qayb galay caleema saarka Axmed Madoobe ma shisheeyo noqday wuxuu kaloo yiri maxaa farqiga u dhaxeeya Faarax Macallin iyo aadan barra ducaale ilaan Faarax Macallin waa kan hotel u degan madaxweyne farmaajo war xildhibaan mahasalaad ma wuxuu rabaa qof nabad inoo la korimaaday in la yiraahdo muwaadinaad tahay aryaadaha hadda ka hor nimay ka hoos baxsan tahay nin u sheegayo wuxuu yiri niyow shalay wayla arrin xumeed xalayna wayla orod yareed haddana wayla aqoon yar tahay warnimo shalay madaxdii caleema saarka Axmed Madoobe ka hadashay aniga warkii Xaaji Muuse Suudi baa iga digay intuu ka saarnay maan dhow Xaaji Muuse shalay wuxuu yiri madaxweyne farmaajo talada bol loogu laabanayaa ma jirto labadii lugood midna Jubbaland baa ku dhagan midna Puntland gacantii midigna Galmudug baa ku dhagan mugga waxa uu soo harow yiri gacan bidixan waxba lagu cinin iyo af iyo calool uyukuna xamaray dhaxyaalin buu yiri lo aan ku siiyo laashimow lama laamisu leefime lo aan ku siiyo laashimow lama laamisu leefime waryaalahan agaasimahaygii hore ee shaqadii shaqaalaha Soomaaliland xafladii caleema saarka Axmed Madoobe ayuu ka qayb galay waxaanu yiri Soomaaliland hadaynu nahay waanu hambalyeynaa af iyo adil iyo gacanba marka Soomaaliland adeer sayidka xoog buu taageertay war musaadaraad Hargeysa joogay
ninkaas hargeysa ma adan romiya war adeero kaasi nairobi buu ka yimid waanu ku laabtay waxayna ku daalin baa idin sheegaya reerland waa tashadeen reer isteed ha tashadeen war gobolka banaadirna war waa waxa quraha shirka lagu yahay gobolka banaadir kaaga kulalihi kaygana iskala miya war meesha hubiyaasha lagu garaacay waa caasimada beesha lixaad ee xalane war waxa lacagta beenta xisaabiye waa wasiir bayle war waxa runtu sheego markii la canaanti beeni waa anta doorka guud ee qaranka war adiga beeniskiisa dambe oo isbadbaadinta maxaa kugu wata ma runtiisa hore qaadati maya waa beenay raadka raacda kugu maqan war adeer sheekadu ma beenay waa runba beeni raad male dheelalaw run ma mooday war ma haysiina warkii hore war soo dhaaf ra'iisul wasaarihii hore ahna madaxweynaha qaatumo Dr. Ali Khalif Gallayr oo buug yar wata yimid xawaru dikka soo yiri war garoonka miyaa lagu xayiri war ma Muuse Biixi soo maca salaameeyeen nabe mahmaaya hadday gacan gashay xantu waxay sheegaysaa inuu madaxweynaha kala hadli rabo maamul goboleedka qaatumo inuu aqoonsado anuna waxaan ka shaki qabaa maadaama kuwii kale ay ku xumeeyeen inuu qarraf ku siiyo aqbalo war may baa dheega jiray timirtii horeba dabloowa madaxweyne farmaajo qaatimiya timati usileeye usiina may baa fadoo inoo sinadlanka darawal lan kordhi war Cabdiraxmaan Shukuur walaa ugu badanahay waxay tahay in madaxweyne farmaajo waqtiga usbuuc ugu darsado waxaan maqli jiray islaan inta xaabadii hore qaadi weysay mid kale ku darsatay marka maamul goboleedyada kuwii hore la qaadi weysan yahay nimay hawaraan maqla yaab leh gudoomiyihii xaafada Buulashiiq ee Jawhar shabaab u dacwoodayaa la yiri oo cadaalad ka raadshay kadibna dacwadan iska dhaaf adigaan dacwo ku qabnaa ay dhaheen aasay qoorta kow ka siiyeen muga waxa yaab yaala ah lama doorayaa gardaran warkaasi waxa weeyaan soo doonatay dacartiya qaraarkaba horta waxa dacwoodo diin iyo kolay taag dastuurada kale isku daran u yaalaba doodooda keensada waa wadar dagaal nicib oo doorka kaliya laba daalum xaaji isku diidanaadaan sharci uga duhaadaan ayaa kow dunuubto dambi laba ku saaxibay isla doorid mooyee in la istilaba wado ariya naga tageestu saas maahina waa eedaan la yaabaye arxankeeru darana war saas maahayna wuxuu ahaa gabay meel cidla ayiilayoon xalay ka soo qaaday oon saakay baafinayo ruux iskala waayey oo la igu haystaan rabaa inaan bilaabaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin adeerow hangoolka galmudug in uu kala wadaniyo geedkaan ma wada joogi karno nuu kala wada war naga tag nuuxnuuxsigaadaan nacay waryaada dalka u shaqeeya iyo dawladda war Antoniyo meesha loo kala kaxeeya war ma haysaa ra'iisul wasaare khayr wuxuu dhex dhigay xaruntii gurmadka degdegeed war meesha dhagax tuurka ka socda waa gedo war dalku waa wada farmaajaysan yahay jidadkuna waa wada khayraysan yihiin dhagax ku waraa meelaan ka marnay weyne ma kuwa kala hadnoo dhex dhigay war baarlamaanka ciidamada mooshinna laga geero waa kay war baarlamaanku meelo ku jiraba ma lahane waryaada xishooda oo sharciga ilaaliso warbaxa baas alla idinka xijaabe haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi